marka laga hadlayo dhaqanka Soomaalida geelu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lafdhabarta u ah dhaqanka Soomaalida taasi oo ay cadeynayso suugaan tiro badan oo ay ku soo halqabsadaan abwaanada Soomaalida oo ay kaga hadlayaan waxtarka cad iyo caanaba uu leeyahay geelu iyo sidoo kale qiimaha uu bulshada Soomaalida uu ku dhex leeyahay geelu haatan xilligan aanu taaganahay waa 6:00 subaxnimo halkanina waa xero weyn oo 10 kiiloomitir in ka badan u jirta magaalada Burco taasi oo caanaha laga keeno waxaanu eegi doonaa geela halkani ku dhaqan waxaana naga warbixin doonaa geel jariyaasha iyagu ku sugan goobtan ee ka shaqeynaya haatan waxaanu ku sugannahay xerada uu geelu ku xareysan yahay walina waxa la maalayaa geela si caanihiisa loo gaarsiiyo magaalada Burco waxaanu eegaynaa qaabka loo maala geela iyo farsamooyin kala duwan ee geela loo adeegsado walaal qaabkan loo lisayo geela kulli waa farsamo dadka qaar badan baan garanay maxaa la yiraahdaa harubka loo hanay saara toona naasaha la qabtaa wala lisa marka waa maskeedi ma filaga hanidii maskeed way kaliin maskeed hanidkan ka jiraanu kulli muddo dheer baad ku dhex jirtaan filaya geela ilaa goorma ilaa waqti ma mudooyin badan way jirtay baalka dhaqankiisu wuu badnaa dhaqankiisu ma garad geelu dhaqankiisu waa hawlo badan yahay muddo dheer ma ilaa 20 meelaha ku dhex jiray 20 sano geel handee dhaqanay marka dhibaatooyinkiisu aad bay u badan yihiin gowdhe manfaacad badan uu leeyahay aan xoolo lahayn ama ay ahaato ama siilada ahaad ama cad ha ahaado manfaacad badan aad buu leeyahay gowdhe dhirtu daaqa ayuu daaqa nooc kasta ha ahaato ama nabaad ha ahaato ama geed caleen la ahaato gowdhe waxa soo markaa kala jaadka dawooyinka badan ka qaata noocaas dabataan caanisu dawo ku noqda marka saas uu ku dawo badan gowdhe marka waa beerta iyo bariga uu daaqa beerta iyo bariga uu daaqa imka laakiin waa beerta warba waa sida deega maxamedow geela kulay dhowr shar baa la maalaa baan filay geela waxa la maalaa habeenkii subaxdii maalintii kale wixii kale loo gala waa dharaar maalmeed buu weeyaan naf male laakiin labada goorada aanihiis wax taraan waa labada qabowsoodu labada jeer la maaro caanihiisa kale ma geela qof waa sidoo yiraahdaa mid qaata mid iska cabba waxay u maqaalaa geela markii caanihiisa la maalo subaxii habeenkii in la geeyo Burco dukaamada lagu gado geela ganacsi waa lagu gadaa oo lagu gadaa haade loo garaa hore waxa dhaqaanay xoolaha arasha halka minaan aqoon joogan lagu qaadayo joogan waa imikun bay soo baxeen waayihii hore geela laguma qaadi jirin joogaga xarub baa lagu meejiro dhexdiisa lagu cabi jiray imika waa caana diiq ganacsiga ahaan buu galay imika sidii magaranaysa mushtarkii oo kale ayuu galay marka taasaa imika loo bedelay dhibaatooyin keentay marka biriga hore
dadka iyo wixii hor yimaada way iska cabi jiray yaa markaa imanka dee ganacsiba noqdo yaa barrooyinka dee laga yaabaa xataa dadkii martida haya iska imi jiray caanaha iska cabi jiray inaanay helin maba heli karaan imanka waddankan aynu joogno dhulku waa kala mid gowdhe gobollada aagooda layskuma martiyo yaa geela kadeen dhanoo xaraysan laguma caanaysan karo laakiin waddamada kale waa caadi yaa marka la eego hawsha geela kule markii hore dee uu ka yaraa uu ka hawl badnaa armegod la wariye yaa hawsha ka waran geela hawsha geelu mar walba dhib buu leeyahay isagu mar walba dhib buu leeyahay waxaan dhib lahayn ma jiraan yaa lama raaca laakiin maxaa loo raaci waayay mar baa la raac mar walba la raacay wixii waa xoolo mar walba waad raacaysa baa halka ilaalisaya meesha waxaan ku duudaya yaa mar walba la dayaca waa laga raway hal walba magac baa loo bixiya sida bilaadanka maal yaa qof aan loo magac ahayn waa noocaas oo kale aad isugu dhow yihiin maxaa lagu garanaya marka inka hashi sala tiimaka tan oo kale tan aaran baa la ilaa ma garata way gaabanta way yarta aaran baa la dhaha ma fahanti ilaa isaga magac kitaab loogama eege bilaadan maahay laakiin magac sharaf lunba loo bixiya inta bisi badan magac badan ka tijumeeyay hadee hashu qaabkeeda taasaa loo bixiyaa ma garanaysa هذا وكل الدبي شيء كمقال كده وكل الدبي هاي وحوي قال وكل قروح بدي وكل عذرون يهاي وكل عارون يهاي ما فهمتي فقد أساس مقعدة وكل اللي يا كوري ما قرأت متبقى قبناه هو ده أم مقع قمال هاي ما فهمتي هل بقى هل داره هو ده مقع وعن لو جيريه ما فهمتي مركز أساس مقعدة شيء كلته وكل الدبي هل هو اللي بوصلتها يا حريها اجين حريه جلسوا معي كل البحر حريه ديجل دمي وطنو حريه دي markay dulimaysato gela waa laga rugaa meel kala baraxan oo banaana ba loo dhiga aan xas lahayn oo dulin lahayn ayaa loo dhigay ma faahad gela kale ma jiraan oo aagin xaraysan niyo kulli anigu imaka halkan qaar ba lagu sheegay ku xarxaraysan ayaa jira laakiin imaka waxaynu ku dhow ma jiraan ma fahan imka marka la eego dadxee waxa ay jireen dhaqashada iyo soo ilaalinaysa xogaha dadkuna aadaanay isoo waqtiyada bay waxa weeye dhaqashada gal weligeedba too much border ku aha gowdhi raguna uu dhaqan jiray ma fahan ganacsigan imka loo dhaqda baan loo dhaqan jiray yaa قال الشرف يبى اللي يصير قنشري مكرنس كودي كايم كا ويقول أنت waxaad waraabinaysaa geeli bal waxaad ka warbixisaa intuu ku qadaa geelu wuxuu ku qadaa hal maalina kal maalina buu qadaa maalinta markuu qado subax dambe lagu shoobiye halka maalin buu qadaa maalin waxa u dhaxaysa in weyn baa dhaxaysa geeli hore 8 boqolkiin kana wuxuu qadaa hal maalina marka hal maalina كل فخر وين بقول حياة برك الله يقول حلقة ودي استدعى عشوا يقولوا بركة غادي تشري قار بدك شيء حتى بال إنه غادي تشري وغادي كرا سمع مركا حاكي أنا بيقول تهاي إن وقالوا دو أنت هالشهر ننقضه بيها أبايا وحال جدي يا عانو لجدي يا تين لجلسه لجدي مركا ستوبي لو رابيو وعنا بدينية بيها خسر دونه ده لقى مكحن كرا إلا يلا سيء
waxa weeye markuu isa soo tubo uu geelisha soo tubo subay sabadii waa sugayna maysa soo samay baa laydhaa ma fahanti waa markuu ceelka isa soo tubo markaa uu tuban yahay ma fahanti markuu hormadana shifa ku absaaroo sharkuuma le baa laydhaa ها oo shar kuma leh waa markuu soo hormado oo biya caasha soo saaro shifa ku afsaar oo shar kuma leh mefe waa markuu cabaye oo imaka birta imaka markii uu risay ku hor ha waa markaas oo kale mefe way koodi way waa tiwada aniga sidii haddareere waxa weeye sidii duulaan talyaqaan wado marka laga yimaado xerada geela oo caanaha ay gawaadhi soo qaadaan halkani ayaa la keenaa meherdan oo ku sugannahay magaceeda waxa la yiraahdaa Bancawl bal waxaan weydiinayaa inanka meherdan haya walaal meherdan bal faahfaahin idinka sii caanaha geelaan u iibiyaa oo ganacsada weyn ku ah marka caano waxa iga yimaadaan Bancawl ya burcoylaayo waxay u jirtaa wallahi kiiloomitirkeedu ma ka khaldan laakiin way fogta ha marka caana waxay soo qaadan layliyo nooho iyo adigu gaariyaal far badan oo kala duwan waxaad warbixin iga siisaa caanaha kulli bariga hore in badan bay waxa laga yaabaa inaanay waqti badan bay soo dhixi jireen hadda laakiin si degdeg ah bay gawaadhidu u keenaan idinka faa'iidahan kabaayidi faa'iido badan xilliga hore iyo imka faqri teelag baa u dhaxeeyay imka ay noogu faa'iido badan tahay annaka degdeg ayay noogu jirtaa gaariyaashu goor hore caana u keenay la qaybsanayaan dadka ayay noogu jirtaa marka caanaha imka halkan waxa weeye 10 shirkaan maadaama ay maanta yaraadeen oo halkan ay ku bixeen 10 shirkaan baarkiintaas siisanay baarkii imka 6 kun oo shil ayar siina marka la eego maalmihii hore iyo hadda keeda maalmihii hore iyo maanta marka la eego qaal ahaanta imka ayar kordhay shilinku ku kordhay dadku kale waxay leeyihiin waa noo qaal gareys laakiin waxay ku jirtaa lis iyo caana saxale oo halkan lagu iibiyo imka waxa ka warbixisa faa'iidada caanaha geelu ay u leeyihiin bulshada caanaha geelu waa laga maarmaan waa shayga ugu fiican hilibka iyo la'aan laga maarmin caanaha geela marka waxa weeye caanaha geela laga maarmo talahaan marka qofka uu rabo inuu qaato kale bacdan aan ugu shubnaa fiican oo saxadeedu ay ugu fiican tahay meelaha waxay ka soo qaadanayoo kale saxahan ayaan uga soo iibnaa waxay ka soo baxdeen shirkadu camba soo turto iyadu meel may soo marin dhasle Shucayb Xasan telefishinka caalamiga ee Sahan magaalada Burco